سلام الله عليكم. maxaa sababay kala go'a Soomaaliya iyo Somaliland yaa mas'uulka ahaa Soomaaliya miyay dib u midoobi doontaa maxaa dhacay su'aalahaas ayaa maskaxdaada ka dhex guuxaya mar kasta oo laga hadlo xiriirka cakiran ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland waa dhacdo qoto dheer ay ku lamaan tahay taariikh siyaasadeed dareen qarannimo iyo dhacdooyin muran dhaliyay haddii aad rabto inaad faham buuxa ka hesho sababta ay labadaasi dhul u kala fogaadeen nala joog goorma ayuu bilowday khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland inkastoo labada dhinac ay si rasmi ah u midoobeen 1960kii khilaafka salka hoose ayuu ahaa burburkii dawladii dhexe ee 1991 ayaa fursad u siisay Somaliland in ay ku dhawaaqdo gooni u istaag haddaba maxay tahay sababta ugu weyn ee Somaliland u sheegtay inay ka go'day Soomaaliya dad badan oo reer Somaliland ah ayaa waxay u arkeen inay ku qabaan tacadiyo iyo dulmi dawladii dhexe gaar ahaan intuu xilka hayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre xasuuqii ka dhacay Hargeysa ee burburkii guud ee dalka ayaa wuxuu ku dhaliyay niyad-jab iyo rabitaan gooni u istaag dadka reer Somaliland isla su'aashan ayaan u arkay inay muhiim u tahay bulshada Soomaaliya may aqbashay gooni u istaaga Somaliland jawaabtu ayaa waxay tahay maya dawladda federaalka Soomaaliya ilaa imaanta ma aqoonsana Somaliland in ay tahay dal madax bannaan iyadoo beesha caalamkuna u aragto arrin u baahan wada hadal iyo xal siyaasadeed kala go'a Somaliland iyo Soomaaliya wuxuu salka ku hayaa isfaham la'aan taariikhi ah iyo siyaasad adag inkastoo ay Somaliland horumar ka sameysay dooda ku saabsan midnimada iyo kala go'a ilaa ay haddana way taagan tahay waxayna ka mid tahay arrimaha ugu xasaasisan ee siyaasadda gobolka xilligii ay ku dhawaaqday Somaliland inay ka go'do Soomaaliya 1991 Somaliland waxaa madaxweyne ka ahaa Cabdiraxmaan Cali Tuur wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Somaliland kadib markii ay ku dhawaaqeen madaxbannaanidooda 18 May 1991 xilligaasi Soomaaliya waxay ku jirtay marxalad burbur ah halka Somaliland ay bilowday dhismo nidaam u gaar ah gumaysigii Ingiriiska wuxuu ka talin jiray waqooyiga Soomaaliya oo loola jeedo Somaliland waxayna xornimada qaadatay 26 Juunyo 1960 gumaysigii Talyaaniga wuxuu ka talin jiray koonfurta Soomaaliya waxayna xornimadeeda qaadatay 1 Luulyo 1960 labadaas qaybood waxay midoobeen 1 Luulyo 1960 taasoo la aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed Somaliland waxay sheeganaysaa inay tahay qaran xor ah oo dhisan leh dastuur doorashooyin ciidan lacag iyo nidaam u gaar ah waxayna ku doodaysaa in burburkii Soomaaliya uu meesha ka saaray heshiiskii midnimada 1960 sidaa darteed waxayna xaq u leedahay inay noqoto dal madax bannaan dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya iyo in ka badan shacabka koonfurta waxay aaminsan yihiin in midnimada qarannimada Soomaaliyeed inay tahay lama taabtaan sidoo kale ay tahay qalad taariikhi ah in gobol lagu dhawaaqo inuu go'aayo halkii laga wada shaqayn lahaa dib u heshiisiin iyo midnimo dhab ah inta arrintaas lagu kala aragti dugan yahay ani ahaan waxa ay muuqataa in xal waara uu ku imaan karo wada hadal oo daacad ah isqadarin iyo in la dhageysto dareenka labada dhinac iyadoo laga fogeynayo culays dibadeed ama cadaadis hubaysan